howlgalkan oo uu hogaaminayay taliyaha howlgelinta guutada tobnaad qaybta 43aad Dhamma Cabdiqaadir Xuseen Shire Biid ayaa ahaa mid lagu baaxsanayo kooxaha argagixisada Al-Shabaab ayay ciidamada taliska guutada tobnaad kuwa ururka kontonaad qaybta 43aad iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Nisa magaalada Garbaharey ka sameeyeen deegaano hoos yimaada xarunta gobolka Gado ee Garbaharey. ciidamadan oo taliska guutada tobnaad ee Garbaharey ka ambabaxay ahaana ciidamo si gaar ah loogu talagalay inay ku howlgalaan mootooyinka ayna kaga hortagaan dhammaan falalka argagixisinimo iyo dhagarta markasta ay maleegaan maleeshiyaadka gobolkoodu dhacay ee argagixisada Al-Shabaab ayaa cagta mariyay fariisimo si dhuumaalaysi ah ay ku joogeen maleeshiyaadka. howlgalkan ay ciidamada ka fuliyeen deegaano badan oo hoos yimaada Garbaharey, Doofaarey, Booco, Gooradheer iyo deegaano kale. bartilmaameedka ciidamada ayaa ahaa deegaanadaasi oo si dhuumaalaysi ah ay ku yimaadaan maleeshiyaadka isla markaana ay ku dhibaateeyaan dadka deegaankaasi. kadib markii ay ciidamada soo gabagabeeyeen howlgalkooda ayuu warbaahinta codka ciidamada qalabka sida kaga warbixiyay howlgalka ay sameeyeen ciidamada gaashaanle sare Warfaa Sheekh Aadan Faroole taliyaha guutada tobnaad qaybta 43aad ee ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan ka warbixinaa gobolka Gado meelaha amniga si looga sugayo iyo waajibyada ciidamadu ay haystaan oo ka howlgalaya degmooyinka ka sameynaya sahamo iyo howlgalo gaaban. hadda waxaan ka howlgalnay area Garbaharey oo maanta aan u baxnay howlgalkaas oo ahaa howlgal qorsheysan oo looga howlgalay meel aan ku maqlaynay argagixisooyinka iyo tuulooyin abaar iyo ay isugu darmatay ayagoo dhuunta haysta. tuulooyinkaasna hadda waan soo marnay ilaa markii maaragtay hadda ayagii way carareen markii information helan way carareen. dadweynuhu baan ugu tagnay tuulooyinkaas oo ay ka mid ahaayeen tuulo la yiraahdo Gooradheer iyo tuulo la yiraahdo Doofaarey iyo tuulo la yiraahdo Booco. intaas ciidanku wuxuu ku soo sameeyay howlgal galabnimo ayagana hadda ciidankana si nabad ku soo xarooday ayagana aaga asaga waa ka carareen.